waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio SBS faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo sbs.com.au xariijin soomaali. Rajo Charity Group waxaan ahnaa youth group oo dhalinyaro oo Perth ku jiraano aniga culture baan start garane sanad camal ago waxaa ku saabsanahay events iyo waxa dhalinyarada ku isku keeno iyo Soomaalinimada Perth inta create gareeno community oo fiican. Waa gartay Kawsar marka fikradda Rajo Film Festival see ku timid yaa keenay maxay ku timid? Okay, so assalamualaikum. So aniga ibsan baaran gareeno ururka Rajo wadaho and ibsan hadda ku sheegtay sanad iyo wax bilowban baan started gareenay. So Rajo Rajo maxawaaye waa group oo anaka bilawnay and maxaa ka rabnaa because community-ga in Perth wuu yar yahay markaa la fiiriyo community-ka oo Melbourne iyo Sydney iyo waxaaseeto so Rajo really mustaqbalka oo Rajo irabna waa mid weyn oo kan Perth Somali community-ga you know dhalinyarada iyo waxaasan ana ifaasin karno dhaqanka Soomaaliyeed in a way oo tusayo you know Somali culture iyo modern culture way isla socon karaan so film festival kaneta iyo waxadan oo Rajo qabanayso is to promote Somali culture in modern way. Waa gartay Liibaan in UK waxaa tahay wiil jilaa director filmaan badan baad ka soo qayb qaadatay bal in yar dadka aan ku aqoon haddaad adigu isaga sheekayso. Masha Allah horta aad iyo aad ugu mahadsanahay inaad isoo dhaweysay magacayga oo internationally garanayo waxa waaye Zach Salad waxa ahay actor director iyo filmmaker oo Ingiriiska ka shaqeeya alxamdulillah horta aad iyo aad ugu faraxsanahay gabdho Soomaaliyeed oo waddanka adduunka kale dhinaca kale ka jooga inay isoo wacdaan ee isweydiistaan inaa usoo bandhigo dhalinyarada Soomaaliyeed oo waddankooda jooga inay filmaanteeda oo nala soo deemin weli inay fiirsadaan horta waxa wax ku farxo waxaan jeclaan lahaa inaad dhalinyarada danooda joogto Australia inay ogaadaan inaa wiil jaamacad ka baxay ahay oo bartay filimka masha Allah kuna shaqaysto aad aanan ugu faraxsanahay masha Allah inay soo wacdo. Waa gartay itisaan filmaan nooceeya ku soo bandhigaysaan film festivalkan? Filimyaasha ku sameynayna waxa way kuwa oo Zakaria u sameeyay specifically for anaka iyo Perth audience-ka waxa way kuwa oo promote gareynay Soomaalinimadeena iyo wuxuu noo yaho ilmaha oo group joogaano. Waa gartay Kawsar sidee u arkaan jaaliyadda Soomaalida Perth degan film festivalkii ugu horeeyay oo Soomaali leedahay sidee bay u arkeen markaa u sheegtaan? Wallahi way faraxsan yihiin because waa wax oo inta laga qaban you know like wax badan inta laga qabto when it comes to like wax oo film festival ama waxyaasha oo art and culture you know like maxaa la qabtaa waxa oo like you know xafladyaal ama wax islamic and that's good like inta anaka maxaa rabnaa wax oo dhalinyarada oo qabsanayaan. So anaka as Rajo organization ka like aniga ibsan both jaamacad baa deganaa so waa wax oo isla qabanayno laakiin si like wax badan baa already soo qabanay hadda waxaan sameynay like almost 5 events wixii dhaqaalo oo kasoo baxayna maxaa u ururinaa like community inta ama in the past maxaa i ururinay you know dadka Soomaaliya ama tusaale 2012 maxaa sameynay event weyn oo almost $13,000 baan aruurinay and markaa la aruuriyay lacagta waxaan ugu iibinay haweenka oo Soomaaliya degan with the UN with Muslim Aid and they so like gataan wax oo you know naflahooda you know which ka dhigayo sida like sewing machines stuff like that. So with Rajo altogether anaka maxaa rabnaa ana both Somalia like especially the Somali Perth community and I help gareeno and we believe like films and art waxaaset is a very good way to do it. Waa gartay Liibaan film and artist adduunka iyo reer galbeedka dalalkan joogna waa wax aad muhiim uga laakiin Soomaalida qaar baa laga yaabaa inay wax kale ka aaminsan yihiin oo Soomaalida waxa moodaa in qaar badan ay dad muxaafidiin soo noqonayaan arrintaas weliga ma aragtay sidaas u dareemaan hawshan ay ku jirtid Soomaalidu? Wallahi run ahaan wax badan wadamadii inta qurbada la soo guuriyay wax badan dhaqankeena uu iska bedelay laakiin rasmi hadii dhaqankeena si loo fiiriyo artska waxa way wax oo ugu jiro lafaha horta wanaka waa ogtahay in loo yaqaan wadankeena the country of poets been dhahan dadka gabiga ugu yaqaanay
wax oo cultureki artska wax isku jiraan waaye haddana maasha allah dhalinyarada cusub adduunka hadda soo korayso qurbadan wada joogaan wadanku ilmaha joogaan wadankii xataa inay ku faraxsan yihiin inay ku faanaan inay dadka tusaan inay capable yihiin artistic expression inay sameyn karaan waa wax lagu faraxsan yahay maasha allah waa gartay Itisaal markii ugu horeysay waa barnaamij noocan oo kala la qabto yaad ku casuunteen yaa ka soo qayb galaya maxaad ka filaysaan inay ka soo baxo waxaan rabnaa inta dhalinyarada oo dhan Perth joogaano Soomaali iyo Soomaali ahaan inta noo imaadaano maadaama hataa communityga oo Soomaali ahaan hataa inta imaadaano sidee u arkaano waxa Soomaalinimo wuxuu yahay iyo intii la bedelo fikrada oo Soomaaliya wax negative-ka oo keenayano inta la tuso dhaqankeena iyo poetnimadeena iyo sida uu contribute gareeni karno the Australian community oo wax positive waa gartay Kawsar filmaanta lagu soo bandhigayo maxaa ugu muhiimsan keebaad mid ka sheegi kartaa well kulli they're quite important kulli maxay touch garayaan on identity iyo waxaas camal laakiin also question ka oo isaan weydiisay hadaa ku diri karo so event kaneeto maxaa la hadalnay city council ka government ka and you know government ka maxay rabaan very strongly ane la hadlaan dadka oo Soomaalida dadka Afrikaanka dadka oo madow you know wadankaneeto imaaday so government ka baana fund gareenayo for event kaneeto which is very very important because it's very important government ka iyo the Somali communities have very good relationship like into the films from what Dexter was trying to say they're very good very good quality very good acting very good directing so it's something that I'm looking forward to you know for the night and the community is very much looking forward to it waa gartay liibaan barnaamijyada aad samaysay waxaa ka mid ah haddaan khaldanayn barnaamij la yiraahdo YouTube-ka la yiraahdo the shit Somali say ma sax soo ma adaa sameeyay sax waa show aniga abaabulay oo asalkiisa sameeyay oo soo daayay oo soo bandhigay dhalinyarada Soomaaliyeed oo adduunka dan wada joogaan inay ku fiirsadaan inay ku arkaan inay ku qaataan waano inay tahay dhaqankooda wax lagu faano wax laga faano inaysan ahayn waa runta waa gartay marka barnaamijkaas intaas samaysay kadib maxaa ka baratay laftigaagu nin dhalinyaraha tahay qurbahaad wax badan joogta laftigaagu maxaa ka baratay barnaamijkaas wallahi wax badan baa ka bartay fursad wanaagsan ay noqotay inaa seasonka ugu horeeyay inaa ku duubo London dad badan ay la soo xiriiraan intaas thousands of people adduunka dan ay ka wada fiirsadaan ay ku farxaan inay arkaan wiil dhalinyarada Soomaaliyeed oo bulshada Soomaaliyeed si dhexgalayo inuu dhaqankii soo bixiyo dhalinyaradan uu ka farxiyo inay arkaan dhaqankooda inay tahay wax lagu faano hadda waxaa tagay Norway Oslo season 2 ku bilaabay duubistiisa masha Allah fursad wanaagsan ay ahayd inaan ku arko dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dadka waaweynka Soomaaliyeed oo isku dhex jiraan oo wada sheekaysanayaan shahwada cabayaan ana wax saas amal ka arkin dalka Ingiriiska aniga hadda joogo haduu Ilaahay fursad wanaagsan ii siiyana dadka Australia tago saas baa jeclaalahay damacsanahay inaa season 2 waxay ku duubto inta Australia joogo so aad ugu faraxsanahay waa gartay Itisaar waa markii ugu horeysay festivalkan la qabtay marka ma mid wuxuu noqon doonaa sanad walba la qabto mase laga yaabaa in uu beed ka gudbo oo gobolada kale ee Australia Melbourne iyo Sydney oo Soomaalidu degan tahay aad gaarsiisaan ha insha Allah khayr maadaama anaka Perth ku saabsanahay so waxa rajayni lahaa hadii next year hata dad kale oo producers actors oo Somali hata inta broadcast gareeno haduna Zakaria noo soo noqdana kaasata khayr and wallahi Allah a'lam hadii other communities oo Australia ku saabsan hadii nala join gareenayo all over Australia waa geeni karnaa fikradan waa gartay Kawsar Soomaalidu filmaanta wax lagu yaqaan ma ahayn marka barnaamijkan ma waxaad isleedahay Soomaalidu filmaanta iyo gabayada iyo arrimaha artiska bay u baahan yihiin guud ahaan yeah wallahi I think so very because like hadda for example maxaa invite garay aniga personally aniga ahaan dad oo arts ka shaqeeyo here in Perth oo museum yaasha ka shaqeeyo ama arts directed iyo waxa so and very much surprised behind marka dhahay you know Somali directed why Somali community ba qabanayo because you know people don't think about the Somali community like one community that wants to do art that wants to do this like here in Australia maxay ku fiirinayaan dad oo Muslim first and that's it you know what I mean like cultured kana ma la yaqaano especially when you talk about the wider Australian community. So it's something that we want to continue and it's something that a lot of people are excited. There are a lot of people out of Banana and Madan. A lot of Ajnabi also does, so it's even better. waa gartay liibaan dhinacaaga tan u dambaysa Australia hadda ka hor maad imaan baan isleeyahay marka waa markii ugu horreyso aad imaan doontid
maxaa ka aaminsantaha maxaase ka filaysaa dal ahaan iyo jaaliyadaba maasha allah horta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan tago waana run weligay ma tegin aniga hortaba aad iyo aad waxaa ka fiirsanaa oo look forward ku sameynaya kangaroos inaan arko koala inuu ilaahay ii kasta inaan arko waa taa wax badan wiilal soomaaliyeed dhalinyarada xagga joogaan already ka wareysnay ku xanaanayaan meelaha la dhaho zuuga aysan ahayn dadka fikradaysa dadka dan ka haystaan adduunka dan australianka inuu kangaroogu dadka amongst yahay uu iska socdo oo la xanaaneeyo so alxamdulilah okay haddaa kangaroo rabana arko waxaa ugu tegi karaa zuuga waana aaminsanahay soomaalida australia joogta inay si fiican iisoo dhaweynayaan hadduu ilaah yidhaahdo aan aad iyo aadaan ugu faraxsanahay fursaddaana siistay maasha allah waa gartay tan ugu dambaysa Kawsar goormaa la qabanaya film festivalkan saacadda waqtiga xageesa lagu qabanaya Okay, so film festival is going to be on the 28th of this month, so very, very soon, and it's going to be going from I think around 7 p.m. up until 9 p.m. And Rivervale Community Centre in Perth, WA. So all welcome to come join. waxaa jeclaan lahaa inaa hortaba aad iyo aad umahadsantihiin ku dhaho Intisaar iyo Kawsar inay isoo doorteen wiil Soomaaliyeed oo London joogo oo actor oo filmmaker inay isoo dalbadeen inaa usoo bandhigo dhalinyarada oo Perth joogto filimantidana soo deelahay aad iyo aad ugu faraxsanahay tanna Ilaahay naga dhigo wax ay dadkeena ku faanaan ee dadkeena iskugu yimaadeen aamin waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app booqo sbs.com.au/Somali